السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta oo ku soo dhawaada barnaamijkeennii ma ogtahay barnaamijkeennana waxaynu ku soo bandhigi doonaa macluumaad ku saabsiisan al-imaam Axmed ibn Ibrahim al-Ghazi imaam Axmed Gurey imaam Axmed ibn Ibrahim al-Ghazi oo ku magac dheer imaam Axmed Gurey wuxuu ahaa Allah u naxariiste halgamaagii iyo geesigii Soomaalida wuxuuna ahaa ninkii furtay ardal xabash dhulka xabashida imaam Axmed ilaahay ha u naxariiste wuxuu ka soo jeedaa qoys muslim oo Soomaaliyeed isagoo ku dhashay deegaano ka tirsan imaaradii Cadal sanadkii 1507 miilaadiga imaam Axmed ilaahay ha u naxariiste waxa uu ka mid ahaa amiiradii iyo saraakiishii ciidankii imaaradaas kadibna isafgaran ayaa soo kala dhex galay isaga iyo suldaankii xilliga ka talinayay imaaradaas oo saldhigoodu uu ahaa magaalada Herar Saylac iyo Berbera suldaankaas oo waxba ka qaban kari waayay dadkii jidgooyayaasha ama isbaarooyinka u dhigtay ummadii muslimiinta ahayd الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي أحمد Gurey wuxuu bilaabay inuu mideeyo dadkii muslimiinta ahaa ee deegaanada ku noolaa waxaa ka mid ahaa ciidamadii imaamka ciidamo Soomaali ah Canfar iyo Oromo isugu jirta ayagoo dhammaan la dagaalamaya dawladii xabashida ee Kiristaanka Orthodox-ka ahayd oo weeraro ba'an ku soo qaadi jirtay dhulka muslimiinta kadibna dhici jirtay hantidooda sidoo kalena qafaalan jirtay carruurtooda iyo haweenkoodaba Allah u naxariiste al-imaam Axmed Gurey ayaa tiraba dhowr dagaal la galay xabashida waanu ka gacan sareeyay isagoo kolka faafinayay diinta suuban ee islaamka sidoo kalena difaacayay walaaladiisa muslimiinta ah ee gabood fallada ay u geysanaysay dawladii xabashidu al-imaam Axmed ibn Ibrahim al-Ghazi Axmed Gurey Allah u naxariiste wuxuu qabsaday dawladii xabashida 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meel ahaan isagoo doonayay inuu gabi ahaanba ka tirtiro xabashida khariirada caalamka dabadeedna waxa uu soo gurmaday xabashidii dawladihii reer galbeedka ahaa gaar ahaan dawladii Portugiiska uu hogaaminayo Christopher da Gama ninka la dhaho oo ahaa wiilkii uu dhalay badmaaxihii caanka ahaa ee Vasco da Gama dagaaladii ugu caansanaa waxaa ka mid ah duulaankii shimbiro kore oo lagu jabiyay boqorkii xabashida ee Lebandangal sidoo kalena imaam Axmed Allah u naxariiste wuxuu gacantiisa ku dilay hogaamiyihii Portugiiska ahaa ee Christopher da Gama Allah u naxariiste imaam Axmed Gurey wuxuu ku shahiiday mid ka mid ah duulaanadaas iyo macrakadaas uu la galayay dadkii xabashida ama dawladii xabashida sanadkii 1543 miilaadiga halgankii imaam Axmed ibn Ibrahim al-Ghazi Axmed Gurey ayaa taariikhda galay baal dahaba noqdayna ruux lagu majeerto geesinimadiisa iyo guulihii aan marnaba la halmaami karaynin ee uu soo hooyay muslimiinta geeska Afrika Allah u naxariisto al-imaam Axmed ibn Ibrahim al-Ghazi Axmed Gurey walaalayaal intaynu ku kulmi doono mawduuca xigana waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh